Roobka caarooyinka. Sanadu markii ahayd 2007 ayaa dalka Argentina waxaa ka dhacay dhacdo aad iyo aad cajiib u noqotay kadib markii xagga sare ka soo da'een caarooyin. Caarooyinka ku soo da'ay tuuladaasi ayaa waxa ay gaareen ilaa 10 sentimitir daqiiqado kadibna dhulkii ayay qabsadeen oo qariyeen iyada oo loo waayay fasiraad caalami ah. Roobab kalluun iyo raax wada socda oo samada ka soo da'ay. Sanadu markii ahayd 2009 magaalo lagu magacaabo Onshikawa oo ku taala dalka Japan waxaa ka da'ay roob wata kalluun iyo raahyo yaryar taasoo qaarkood ay ku tilmaameen inay macquul tahay inay la socdeen daruuraha qayb ka mid ah biyaha badda halkaasna ay macquul tahay inay ka soo raaceen xayawaanadan yaryar. Roobkii midabada. Sanadu markii ahayd 2006 ayaa waxaa ka dhacay dalka Hindiya dhacdo cajiib ah kadib markii uu bilaabay roobku inuu ku soo da'o midabo kala duwan tuulooyinka qaar si aad moodo roobka in la soo naqshadeeyay balse dhacdadaasi baaritaan kasta oo la sameeyay waa laga gungaari waayay sababta ka dambeysa arrinkaas. Roobkii dhiigga. Sanadu markii ahayd 2008 ayaa shacabka Colombia ku dhaqan waxay ku daaleen fahamka roob dhiig ah oo hal mar ka soo da'ay xagga sare kadib waxa ay ku sameeyeen baaritaan aad u dheer waxayna ogaadeen inuu yahay dhiig bini'aadam. Roobkii ukunta. Jasiiradda Hawaii waxaa ku soo daatay tiro 1800 oo ukun oo madow ah taas oo sababta ka dambeysa ilaa hadda la fahmi waayay. Roobkii lo'da soo daadatay. Sanadu markay ahayd 1980 ayaa mar uu marayay markab ay lahaayeen Japan xuduudda badda Russia markabkii ayaa wuxuu bilaabay inuu hal mar si keliis ah u gadoomo taasoo sababtay lo' xagga sare uga soo daadatay. 2 usbuuc kadib Russia waxa uu cadeeyay inay dusheeda maraysay diyaarad siday lo' taasoo ka soo daateen 20 lo' sababtuna waxay ahayd miisaanka oo ka tambatay diyaaradda. Baraf shabaha qaraha ama xabxabka. Waxaa jira dhowr goobood oo ka tirsan buuraha ku yaala gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa guryihii waxaa qariyay baraf uu midabkiisu u eg yahay xabxabka. Roobkii lacagta. Sanada 2007 ayaa koob ka mid ah Jarmalka waxaa hal mar ku soo da'ay kumanaan iyo boqolaal lacago waraaqada ah. Baaritaan ay xukuumadda sameysay ayaa waxay ku qaadatay toddobaadyo badan balse way fahmi waayeen sababta ka dambeysa lacagtaasi soo daadatay ama qofka soo daadiyay lacagtaas.